على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. markii nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam ay daadiisu 40 ku dhawaatay waxa la jecleysiyay inuu ku qaato saacado dhaadheer cidlo iyo kelinimo iyo doorasida dhamaan arrimaha uunka hareerihiisa ah. kali fikirka waxay keentay inay ballaariso farqiga aragtida u dhaxeeya isaga iyo qoonkiisa. wuxuu qaadan jiray sawiiq salool biyo oo markaas aadi jiray gebiyada iyo waraqyada u dhow Maka. mid ka mid ah baa ahaa gaar ahaan meesha uu fadilo waa gabi la yiraahdo Xiraa oo ku yaal buurta Nuur. wuxuu u jiray oo kaliya 2 mayl Maka. gabi yar oo dhererkiisu ahaa 4 dhudhun ballaciisuna ahaa 3 dhudhun iyo dheeraad. wuxuu aadi jiray badi halkaas oo ugu yeeri jiray dadka safraya inay la wadaagaan raashinkiisa fudud. wuxuu ku dhamaysan jiray waqtiga badankiisa gaar ahaan bisha Ramadaan cibaadaysi iyo fiirfiirinta iyo ka fekerida muuqaalka koonka baaxadda weyn iyo awoodda ka dambaysa ee amaamuday waa Alle jalla wa ala. qalbigiisa waxa uu ka walwalsanaa oo kuma uu qanacsanayn caqiidooyinka shirkiga iyo qabitaanada daleesha ah ee tulkii rumaysnaayeen. isla markaasna ma uu haysan wadacad iyo manhaj la yaqaan oo uu ku xasilo oo qanciya. rasuulku sallallahu alayhi wa sallam cidlaysiga uu doortay oo jeclaaday waxaa ka dambeeyay maamul Alle si loogu diyaariyo arrin weyn oo ku soo aadan oo sugaya naf kasta oo la doonayo inay wax bedesho oo sida aadanuhu ku nool yahay ay saameyn iyo raad ku reebto. waxaa lama huraan ah inay hesho muddo ay firaaqowdo oo gooni iyo cidlo ku noolaato oo ay ka socnaato oo ka dhex baxdo buuqa iyo qaylada nolosha iyo fekerka aadanaha ee firigta ah ee nolosha la filka ah. sidaas buu Alle kor ahaayay rasuulkiisa sallallahu alayhi wa sallam u qoondeeyay isagoo u diyaarinayay xilka weyn ee uu xambaari doono oo dhulka guudkiisa isbedel ku samayn doona oo majaraha taariikhda leexin doona. wuxuu Alle rasuulkiisa sallallahu alayhi wa sallam cidlaysigaas u qoondeeyay 3 sano ka hor intii uusan xilka risaalada qaadin. muddo bil ah buu cidlada u bixi jiray isagoo la noolaan jiray koonka dalaasha ah oo fiirfiirsan jiray waxa qarsoon ee koonka ka shisheeya inta laga gaarayo maalinta uu la falgeli lahaa waxa qarsoon markii Alle jalla wa ala uu idmo. markii uu rasuulku sallallahu alayhi wa sallam 40 jir gaaray da'da kaamil noqoshada ee nabiyada mar walba lagu amro inay shaaca ka qaadaan risaaladooda. astaamihii nabinimadiisa baa bilowday inay ka muuqataan oo ka soo bidhaantaan jihooyinka nolosha. waxaana calaamooyinka ka mid ahaa riyooyinka. haddii uu riyo ku riyoodo iyadoo dharaar cad ah sideedii buu arki jiray. muddo 6 bilood ah bayna riyadaasi socotay. muddada nabinimada waxay ahayd 23 sano kolka muddada 6 bilood ee riyada dhabowdayna qayb ka ahayd 46 qaybood oo nabinimadu ka kooban tahay. Ramadaan gudihii oo ah sanadkii 3aad ee uu ku khalwoodka nabiga sallallahu alayhi wa sallam xiira rabitaanka Alle waxay doontay naxariistiisu inay ku dararto dhulka. Muhammadna sallallahu alayhi wa sallam waxaa lagu sharfay nabinimo nuurkii waxyiga baa xoog u kala furmay aayado ka mid ah Qur'aanka Kariimka ah baana soo degay. markii la baarayna maalintaasi waxay ku beegnayd maalin Isniin ah 21 Ramadaan habeenimo oo waafaqsan 10 August sanadkii 610 ee miilaadiga. markaasna rasuulku sallallahu alayhi wa sallam da'diisu waxay ahayd 40 sano iyo 6 bilood iyo 12 cisho oo sanadka dayaxa ah taasoo u dhiganta 39 sano iyo 3 bilood iyo 12 maalmood oo sanad qorraxeedka ah. Aisha waa runleydii waxay soo warisay warintan soo socota ee la xiriirta dhacdada taariikhiga ah ee la soo dejiyay nuurka ilaahiga ah ee lagu saaray mugdiga kufriga iyo jaahilnimada. waxay u jeexday nolosha wado cusub oo keentay isbedelkii u weynaa ee dhaca taariikhda aadanaha. Aisha ilaahay ha ka raali noqdee waxay tiri hordhici waxyiga sida uu ku bilowday nabiga sallallahu alayhi wa sallam waxay ahayd riyo run ah. haddii uu riyo ku riyoodo wuxuu arki jiray iyada oo dharaar cad sideedii ah. dabadeed waxaa nabiga sallallahu alayhi wa sallam la jeclaysiiyay gooniyoobid iyo soocanka. wuxuuna ku kaliyoobi jiray gabiga Xiraa oo uu ku cibaadaysan jiray habeeno tirsan inta uusan u laaban xaaskiisa
dabadeed waa uu laabanayay markaasuu sahay ka soo qaadan jiray dhan inta uu joogayo. isagoo sidaas ku jira oo gebiga xiiro jooga baa xaqii malagu u yimi oo ku yiri akhri. ma akhrin karo buu yiri rasuulku sallallahu alayhi wasallam. Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku celiyay malagii akhri, markaasuu qabtay oo camajuujiyay. misna waa uu sii daayay oo ku celiyay akhri, markaasuu qabtay oo camajuujiyay. rasuulkuna markasta waxa uu lahaa anigu ma akhriyo. markii dambe ayaa malagii wuxuu ku yiri اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. نبي صلى الله عليه وسلم وكعل عليه آياتها وحول جرين يا عبسي مركز رسولك إسقدي أو أتجي حاسك سي خديجة أو يري إددا وأنا الذي أنت نحدنتك بعضي وحول جورها من خديجة أرهنكي جبيجة إنه نفتي سوياوي حاسك سي وحي إسقط يدي إن يدجس أسقط إستجا يدوله مايا والله بان alle abidka ku hoojinayn. saadigu waxaad xiriirisaa riximka oo ka qaada culaabta qofka caad oo qofka daciifka ah. waxaad kaalmaysaa saboolka iyo baahanaha oo soorta martida oo ugu dul qaadataa dhibo iyo xaq daraadi. markaasay u kaxaysay nabiga sallallahu alayhi wasallam ina adeerkeed Waraqa bin Nawfal bin Asad bin Abd al-Uzza kaasoo galay diinta Kirishtaanka islaamka ka hor oo ku qori jiray injiilka afka Cibraaniga. wuxuu ahaa oday waayeel ah oo indhala. Khadiija waxay tiri in adeerow bal dhageyso wiilka aad adeerka u tahay. Waraqa wuxuu yiri wiilkii walaalkayow maxaad aragtay? rasuulkii alle sallallahu alayhi wasallam wuxuu uga waramay wixii uu la kulmay. Waraqa wuxuu ku warceliyay kani waa naamuus, macnaha waa malaga loo dhiibo xogaha iyo waxyiga alle oo alle u soo diray nabi Muuse alayhi salaam. haddii aan xoog lahaan lahaa haddii aan noolaan lahaa marka tolka ku saarayo. Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu weydiiyay miyay isaari doonaan? Waraqa wuxuu ku jawaabay haa, ma jiro nin waxa aad la timi oo kale la yimi oo aan la colaadin. haddiina aan nolol ku gaaro maalintaas markaas hiil la yaqaan baan ku helin doonaa. dhowr maalmood kadib Waraqa waa uu dhintay. waxyigiina sidoo kale waa hakaday. walaalayaal darsigan darsi la mid ah inta aynu ku kulmi doono waa anigoo ah Maxamuud Jaamac. waxaan idinkaga tegayaa amaano Allah iyo ismaqal dambe oo xiiso leh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. markii nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam ay daadiisu 40 ku dhawaatay waxa la jecleysiyay inuu ku qaato saacado dhaadheer cidlo iyo kelinimo iyo doorasida dhamaan arrimaha uunka hareerihiisa ah. kali fikirka waxay keentay inay ballaariso farqiga aragtida u dhaxeeya isaga iyo qoonkiisa. wuxuu qaadan jiray sawiiq salool biyo oo markaas aadi jiray gebiyada iyo waraqyada u dhow Maka. mid ka mid ah baa ahaa gaar ahaan meesha uu fadilo waa gebi la yiraahdo Xiraa oo ku yaal buurta Nuur. wuxuu u jiray oo kaliya 2 mayl Maka. gebi yar oo dhererkiisu ahaa 4 dhudhun ballaciisuna ahaa 3 dhudhun iyo dheeraad. wuxuu aadi jiray badi halkaas oo ugu yeeri jiray dadka safraya inay la wadaagaan raashinkiisa fudud. wuxuu ku dhamaysan jiray waqtiga badankiisa gaar ahaan bisha Ramadaan cibaadaysi iyo fiirfiirinta iyo ka fekerida muuqaalka koonka baaxadda weyn iyo awoodda ka dambaysa ee amaamuday waa Alle jalla wa ala. qalbigiisa waxa uu ka walwalsanaa oo kuma uu qanacsanayn caqiidooyinka shirkiga iyo qabitaanada daleesha ah ee tolkii rumaysnaayeen. isla markaasna ma uu haysan wadacad iyo manhaj la yaqaan oo uu ku xasilo oo qanciya. rasuulku sallallahu alayhi wasallam cidlaysiga uu doortay oo jeclaaday waxaa ka dambeeyay maamul Alle si loogu diyaariyo arrin weyn oo ku soo aadan oo sugaya naf kasta oo la doonayo inay wax bedesho oo sida aadanuhu ku nool yahay ay saameyn iyo raad ku reebto. waxaa lama huraan ah inay hesho muddo ay firaaqowdo oo gooni iyo cidlo ku noolaato oo ay ka socnaato oo ka dhex baxdo buuqa iyo qaylada nolosha iyo fikirka aadanaha ee firigta ah ee nolosha la filka ah. sidaas buu Alle kor ahaayay rasuulkiisa sallallahu alayhi wasallam u qoondeeyay isagoo u diyaarinayay xilka weyn ee uu xambaari doono oo dhulka guudkiisa isbedel ku samayn doona oo majaraha taariikhda leexin doona.
wuxuu alle rasuulkiisa sallallahu alayhi wasallam cidlaysigaas u qoondeeyey 3 sano ka hor intii uusan xilka risaalada qaadin. muddo bil ah buu cidlada u bixi jiray isagoo la noolaan jiray koonka dalaasha ah oo fiirfiirsan jiray waxa qarsoon ee koonka ka shisheeya inta laga gaarayo maalinta uu la falgeli lahaa waxa qarsoon markii alle jalla wa ala uu idmo. markii uu rasuulku sallallahu alayhi wasallam 40 jir gaaray da'da kaamil noqoshada ee nabiyada mar walba lagu amro inay shaaca ka qaadaan risaaladooda astaamihii nabinimadiisa baa bilowday inay ka muuqataan oo ka soo bidhaantaan jihooyinka nolosha waxaana calaamooyinka ka mid ahaa riyooyinka. haddii uu riyo ku riyoodo iyadoo dharaar cad ah sideedii buu arki jiray. muddo 6 bilood ah bayna riyadaasi socotay. muddada nebinimada waxay ahayd 23 sano kolka muddada 6 bilood ee riyada dhabowdayna qayb ka ahayd 46 qaybood oo nebinimadu ka kooban tahay. Ramadaan gudihii oo ah sanadkii 3aad ee uu ku khalwoodka nabiga sallallahu alayhi wasallam xiira rabitaanka alle waxay doontay naxariistiisu inay ku dararto dhulka. Muxammedna sallallahu alayhi wasallam waxaa lagu sharfay nebinimo nuurkii waxyiga baa xoog u kala furmay aayado ka mid ah quraanka kariimka ah baana soo degay. markii la baarayna maalintaasi waxay ku beegnayd maalin isniin ah 21 Ramadaan habeenimo oo waafaqsan 10 August sanadkii 610 ee miilaadiga. markaasna rasuulku sallallahu alayhi wasallam da'diisu waxay ahayd 40 sano iyo 6 bilood iyo 12 cisho oo sanadka dayaxa ah, taasoo u dhiganta 39 sano iyo 3 bilood iyo 12 maalmood oo sanad qorraxeedka ah. Aisha waa runleydii waxay soo warisay warintan soo socota ee la xiriirta dhacdada taariikhiga ah ee la soo dejiyay nuurka ilaahiga ah ee lagu saaray mugdiga kufriga iyo jaahilnimada. waxay u jeexday nolosha wado cusub oo keentay isbedelkii u weynaa ee dhaca taariikhda aadanaha. Aisha ilaahay ha ka raali noqdee waxay tiri hordhici waxyiga sida uu ku bilowday nabiga sallallahu alayhi wasallam waxay ahayd riyo run ah. haddii uu riyo ku riyoodo wuxuu arki jiray iyada oo dharaar cad sideedii ah. dabadeed waxaa nabiga sallallahu alayhi wasallam la jeclaysiiyey gooniyoobid iyo soocanka. wuxuuna ku kaliyoobi jiray gabiga xiira oo uu ku cibaadaysan jiray habeeno tirsan inta uusan u laaban xaaskiisa. dabadeed waa uu laabanayay markaasuu sahay ka soo qaadan jiray dhan inta uu joogay. isagoo sidaas ku jira oo gabiga xiira jooga baa xaqii malagu u yimi oo ku yiri akhri. ma akhrin karo buu yiri rasuulku sallallahu alayhi wasallam. Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku celiyay malagii akhri. markaasuu qabtay oo camajuujiyay misna waa uu sii daayay oo ku celiyay akhri. markaasuu qabtay oo camajuujiyay. rasuulkuna markasta waxa uu lahaa anigu ma akhriyo. markii dambe ayaa malagii wuxuu ku yiri اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. nabigu sallallahu alayhi wasallam ku celceliyay aayadaha wuxuu la jareynaya cabsi. markaasuu rasuulku isgadiyay oo u tagay xaaskiisii Khadiija oo yiri idada waana la dilay. intii naxdintu ka baaday wuxuu uga waramay Khadiija arrinkii gabiga iyo inuu naftiisa u yaabay. xaaskiisii waxay isku dayday inay dejiso oo sugto isaga iyadoo leh maya wallahi baan alle abidka ku hoojinayn. saadigu waxaad xiriirisaa riximka oo ka qaadaa ulaabta qofka daciifka ah. waxaad kaalmaysaa saboolka iyo baahanaha oo soorta martida oo ugu dulqaadataa dhibo iyo xaq daraadi. markaasay u kaxaysay nabiga sallallahu alayhi wasallam ina adeerkeed Waraqa bin Nawfal bin Asad bin Abd al-Uzza kaasoo galay diinta Kirishtaanka islaamka ka hor oo ku qori jiray injiilka afka Cibraaniga. wuxuu ahaa oday waayeel ah oo indhala. Khadiija waxay tiri in adeerow bal dhageyso wiilka aad adeerka u tahay. Waraqa wuxuu yiri wiilkii walaalkayow maxaad aragtay? rasuulkii alle sallallahu alayhi wasallam wuxuu uga waramay wixii uu la kulmay. Waraqa wuxuu ku warceliyay kani waa naamuus, macnaha waa malaga loo dhiibo xogaha iyo waxyiga alle oo alle u soo diray nabi Muuse alayhi salaam. haddii aan xoog lahaan lahaa haddii aan noolaan lahaa marka tolka ku saarayo. Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu weydiiyay miyay isaari doonaan? Waraqa wuxuu ku jawaabay ma jiro
nin waxa aad la timi oo kale la yimi oo aan la colaadin. haddiina aan nolol ku gaaro maalintaas, markaas hiil la yaqaan baan kuu hiilin doonaa. dhowr maalmood kadib Waraqa waa uu dhintay, waxyigiina sidoo kale waa hakaday. walaalayaal, darsigan darsi la mida inta aynu ku kulmi doono, waa anigoo ah Maxamuud Jaamac. waxaan idinkaga tegayaa ammaano Allah iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.